kusoo dhawaada asxaabta hawada ku saaxiibnayo baraheena bulshada ee youtube-keena Doobiyo Media iyo M-Doobiyo. Waxaan kuu soo tabin doonaa dhacdooyinka caalamka ka dhacay kuwa Soomaalida hadday ahaan lahaayeen dhacdooyinkaasi kuwa iskugu jira dalka iyo dibaddaba. Intaba waxaa ku kulmina M-Doobiyo iyo Doobiyo Media haddii la xiriiraan kuwa siyaasadda dibadda ama kuwa kaloo la xiriira siyaasadda gudaha. Intaba waxaa kuu soo tabinayo M-Doobiyo iyo Doobiyo Media haddii ahaan lahaayeen dhaqaalahana iyo fanka iyo sugaanta gudaha iyo dibaddaba. intaba kama maqno. waxaa qayb ka ah xoojinta diinta iyo dhaqankeena suuban. waxaana sidoo kale M-Doobiyo focuska u saara diiradda isboortiska gudaha iyo dibadda. intaba Doobiyo Media iyo M-Doobiyo ayaa ka daawan doontaa mar walibana ku xirnaaw barahaasi M-Doobiyo iyo Doobiyo Media. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. khiyaartu i daawanaysay meel walba ay joogtaan iyo goor walba iyo xilli walba ay idiin tahay waxaana wanaagsan ayaan ku leeyahan waan anigoo ah saaxiibkiina hawada ku saaxiibteen islamarkaasina alaabana mar walba halkan kala soo hadla barteena ee youtube-ka Doobiyo Media iyo sidoo kale barta kale ee facebook-ga M-Doobiyo kuna soo baahiyo qodobada dalkaada hooyo siyaasadda kuwoodii ugu dambeeyey islamarkaasina aan diiradda saarno kuwa ugu dambeeyey qodobada idiin wado islamarkaasina aan iminka halkan kaga soo baahinayo. intaan gudagelin aan ku yidhi xasuusiya hadday tahay markii kugu horreysay janaalkani hadduu imaadid ee Doobiyo Media barteena youtube-kana subscribe-ka noo saaran fadlan calaamada gudan hortaada subscribe-ka taabo gambaleelkana furo si aan macaamiil joogto naqano. like-tan dhiirigelin ayay noo tahay taliyo aragtidaadana noogu soo gudba qaybta hoose commentiga asxaabtaadana la sii wadaag. sidoo kalena barteena kale ee facebook-ga M-Doobiyo booqashadaada koowaad haday tahay aanay noo saarin filowga fadlan calaamada hortaada ee filowga taabo islamarkaasina like-tan videoga noo saar si aad noo dhiirigelisid. aragtidaadana commentiga noogu soo gudbi asxaabtaadana la sii wadaag. aan kuu sii galogalo qodobada idiin hayo islamarkaasina halkan kaga soo baahinayo. maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynihii muddaxileedkii ka dhammaaday iyo xubno ka tirsan villa Soomaaliya xafiiskiisa ayaa ka ambabaxay muqdisho maanta Addis Ababana gaaray. socdaalka farmaajo ee Addis Ababa maxaa ku hoos duugan? ka qaybgalka shirka midowda Afrika ay sheegeen maxaa ku hoos duugan? maxaana ka jiro in dekada Berbero iyo sidoo kale Zeylac laga hadli doono islamarkaasina farmaajo lagala hadli doono arrintaasi ee Itoobiya kala hadli doonto iyo sidoo kalena arrimaha la xiriiro doorashooyinka ciidamada la sheegayo Itoobiya in ay la rabo beledweyne in la keeno. maxaa ka jiro arrintaasi? warbixin dheer oo la xiriirto ayaan ka diyaarinay ayaan kuu soo gudbin doonaa. sidoo kalena 40kii cisho ee golaha wadatashiga qaran u qabteen doorashooyinka in lagu soo dhameeyo islamarkaasina ay iminka ka harsantaa 21 cisho siday wax ku socdaanna iyo inta dhiman ma ku dhammaystirmi doonaan. diiradda ayaan saari doonaa warbixin aan ka diyaarinay qodobadaas ayaan ku balbaalin doonaa balse u diyaar garow. madaxweynaha muddaxileedkii ka dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ka tirsan villa Soomaaliya ayaa ka ambabaxay muqdisho maanta islamarkaasina ayagoo gaaray magaalada Addis Ababa ee dalkaasi Itoobiya halkaasi oo ay ku soo dhaweeyeen ra-iisul wasaaraha xukuumadda dalkaasi Itoobiya Abiy Ahmed xukuumaddaasi wasiire ka tirsan iyo sidoo kalena safiirka Soomaaliya u fadhiya Itoobiya. socdaalka farmaajo ayaa afhayeenka madaxtooyada villa Soomaaliya Cabdirashiid waxa uu ku sheegay inuu farmaajo ka qayb galayo shirka golaha midowda Afrika islamarkaasina ee fadhigiisa 35aad. balse warar kale ayaa dhinac socdo islamarkaasina tilmaamayo in maxamed cabdulaahi farmaajo shirkaasi uusan rabin islamarkaasina ujeedka ugu weyn uu yahay Abiy Ahmed ayaa u yeeray taasina ay salka ku hayso arrinta la xiriirta doorashooyinka Soomaaliya iyo arrinta dekada Berbero iyo sidoo kalena arrinta kale ee Zeylac. waxaana wararku ay sheegayaan farmaajo inuu qorshayaal oo wato ku aadan in dowladda Itoobiya saaxiibkiisa siyaasadeed ee ra'iisul wasaarihiisa
Ethiopia Abiy Ahmed inuu ka taageero arrinta la xiriirto ciidamada ay dowladda Ethiopia oo ka rabo farmaajo oo ku aadan doorashooyinka arrimaha la xiriiro beledweyne sidii loo geyn lahaa isla markaasina doorashada halkaasi ka dhaceyso ee door ku qaadan lahayn filla Soomaaliya kuraasta markay soo baxsanayaan. Warar kale ayaa waxay sheegayaan in socdaalkii Dubai uu ku tagayay ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed isla markaasina uu ka hadlayay arrimaha la xiriiro dekedda Berbera isla markaasina Imaaraadka Carabtana ay halkaasi Somaliland heshiis ee la gashay lagala soo hadlay arrimahaasi dhamaystirkooda laga rabo farmaajo. Waxaana warar kale sheegayaan in ciidamada ay dowladda Ethiopia gaar ahaan kuwa badda ee tababaratay agabkooda ee baraakiibta ah ee soo gadatay isla markaasina fariisin ay ka sameysay rabta Saylac farmaajona oo qoraal saxiix rabo. Socdaalkaasi sidaasi ayaa ku hoos dugan ayaa la dhahayaa, balse geeska kale marka la fiiriyo doorashooyinkii heshiiskii 40 cisho ee loo qabtay isla markaasina 9 January soo dhaafnay heshiiskii ay gaareen Muqdisho ay ku gaareen madaxda maamul goboleedyada dalka Soomaaliya iyo gobolka Banaadir iyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo dhowr qodob arrimaha doorashooyinka ee la xiriira isla markaasina loo qabtay 40 cisho in lagu soo gabagabeeyo doorashada golaha shacabka. waxayna taasi ay bilaabaneysay 15 January ee soo dhaafnay sanadkan 2022 kuna ekeed 25 February bishan ugu jirno isla markaasina 40 cisho la rabo 275 baarlamaanka Soomaaliya ka kooban kuraastiisa inta dhiman lagu soo doorto. balse marka loo fiiriyo maamul goboleedyada doorashooyinka ka socdo inta ay doorteen iyo inta u dhiman marka la isbabar dhigo waxaa muuqato in ay weli tahay mid gaabis ay ku socoto. waxaana wararka ay sheegayaan in marka loo fiiriyo sida maamul goboleedka Jubbaland waxay tahay mid inta ay dooratay isla markaasina inta u dhiman ay tahay laba bar inay dhiman tahay. sidoo kalena waxaa jirto Hirshabelle marka loo fiiriyo inta ay dooratay iyo kuraasta taalo iyo inta u dhiman ayaa badan. welina caqabad waxaa ka haysata deegaankii labaad ee doorashada lagu qaban lahaa. sidoo kalena waxaa jirto gobolada waqooyi inta ay doorteen iyo inta u dhiman marka la fiiriyo waxaa badan inta u dhiman. baarlamaanka Puntland waxaa lagu doortay xubno inta dhimanna ayaana badan marka labada dhinac loo fiiriyo. dhammaan waxay muujinaysaa taasi in maamul goboleedyada weli ay ku qabanayaan hal maamul goboleed. koonfur galbeed kuraastii ugu badneed oo taalo ayaa isla markaasina ah 69 kursi 24 ayaa laga doortay 45 ayaa dhiman. taasina waxay muujinaysaa weli inay tahay mid gaabis ah qiladhaantana ee halkeeda ay kasii socoto. waxaa jirto maanta tilaabo ay koonfur galbeed ee qaaday oo siyaasad filla Soomaaliya gadaal ay ka dheelayso ay tahay taasi oo ku aadan Baraawe ayay waxay geysay ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed isla markaasina la sheegay in loogu talagalay sugidda ammaanka goobaha ay doorashooyinka ay ka dhacayaan isla markaasina la rabo in doorasho halkaasi bilow laga sameeyo si Jubbaland ugu qasbanaato in tagto ama doorashada kuraasta ee taalo gedo ee Jubbaland ay door ku yeelanin isla markaasina kuraastaasi farmaajo oo soo qaato. intaasina ayaan kugu soo gabagabeynayna qodobadeeni dhowrka ahayd isla markaasina anigoo Musa Maxamed Cali halkan kaga soo tabinaye. xasuusiya haday tahay markii kugu horeysay janaalkani haduu imaadid Ethiopia Media barteena YouTube kan subscribe kana saaran fadlan calaamad guud hortaada subscribe kitaabo gambaleelkana furo si aan macaamiil joogto noqono. like tan dhiirigelin ayay inoo tahay taliya aragtidaadana noogu soo gudbi qaybta hoose commentiga asxaabtaadana la sii wadaag.